Ha sugin fursadaha aan caadiga ahayn. Qaabee munaasabadahaaga caadiga ah oo ka dhig iyaga kuwa wanaagsan. Daruufta aad ku jirto ma go'aaminayso meesha aad tegi karto. Kaliya waxa ay go'aaminaysaa meesha aad ka bilaabaysid. Marka aad guusha ugu baahan tahay sida aad naftaada ugu baahan tahay oo kale, markaas waa aad guulaysan doontaa. Jooji in aad si yar u hawlgashid. Kuma lihi waa ay fududaan doontaa. Waxa aan ku leeyahay waa ay u qalmi doontaa dhib kasta oo loo maro. Habeen kasta oo madow waxaa ka dambeeya maalin cad. Ha rajo dhigin marka ay qorraxdu dhacdo. Dayaxa ayaa soo bixi doona. Haddii aad orado, laga yaabaa inaad fashilanto. Haddiise aanad ordin, hubaal waad fashilmaysaa. Waa in aad wax hortaa si aad wax wanaagsan u samayso. Ilaali ballan kasta oo aad qaado. Kaliya ballan qaad ballanta aad ilaalin karto. Qorshe wanaagsan oo aad hadda qabato ayaa ka wanaagsan qorshe dhammaystiran oo aad toddobaad kadib qorshaysato. Ma jiro wax aanad noqon karin, ama aanad qaban karin, ama aanad heli karin. Sababtoo ah ibni aadanka Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey maskax dhammaystiran oo ay ka buuxaan xikmado cajiib ah. Tallaabada ugu horreysa waa in aad gebi ahaanba ay ku caddaataa waxa aad rabto inaad qabato. Ma jiro wax la yidhaahdo gafaf ama guuldarrooyin. Kaliya waa casharro wax laga barto. Haddaba marka ay wax dhacaan, waa ay dhaceen. Dib ha u eegin, hore uga soco hadafkaaga kan xiga. Marka aad wax qorshaysanayso, ha sii saadaalin guuldarradaada. Sida ay doonto ha noqotay cimiladu. Marna kama addaahin inaad noqoto wixii aad noqon lahayd. Dhammaystirku ma aha wax la gaari karo. Laakiin haddii aynu eryono dhammaystirka, waa aynu gaari karnaa meel sare. Waxaa laga yaabaa in aadan ogeyn natiijada ka imaanaysa ficilkaaga. Laakiin haddii aanad waxba samayn, ma jiri doono